Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa markaasi oo ku saabsan yahay saddex qodob oo aad iyo aad u muhiima markaasi dad fara badanina ay u baahan yihiin markaasi in ay ogaadaan. Saddexda qodob waxa weeyaan qaabka markaasi Facebooka ama markaasi Facebook account-kaas isticmaalayso loo ogaado in lagula isticmaalayo iyo in kale. Qodobka labaadna wuxuu noqonayaa markaasi Facebook account-kaaga dadka aad ogaatay inay kula isticmaalayaan sida aad ugu log out garan lahayd adigoo markaasi isticmaalaya Facebookkaaga ama taleefankaaga isticmaalaya. Qodobka saddexaadna waxaa noqon doonaa in markaasi aan eegno qaabka aad u secure garan lahayd ama aad u adkeysan lahayd Facebookkaaga si aan lagaaga jabsanin ama aan cidi markaasi ku soo attack gareyn. Okay, waxaan bilaabi doonaa markaasi aan gudagali doonaa casharka qodobka ugu horeeya markaasi ka bilaabi doonaa. Waxa aad samayn doontaa markaasi in Facebooka aad soo furato marka ugu horeysa. Facebookan soo furi doonaa. Facebooka markaan soo furo waxaad markaasi imanaysaa qaybta markaasi settings-ka ayaad iman doontaa. Qaybta markaad ku dhufato menu-ga halkan ay ku qoran tahay settings and privacy baad iman. Haddana waxaad markaasi halkan ka sii dooran doontaa settings halka ku qoran tahay. Qaybtan marka aad soo doorato waxaad iman doontaa halka ay ku qoran tahay security and login. Waad aragtaa ma filayaa security and login halka ku qoran tahay baad ku dhufan doontaa. Halkan markaad soo dhufato halkan wuxuu kaaga soo saaray marka adeegyo aad u tiro badan. Midkaan u socono waxa weeyaan where you are logged in ama halkii aad Facebookkaaga gelisay ama meelaha aad ku isticmaashay dhammaantood. Haddaba markaa waxaan samayn doonaa halka ay ku qoran tahay see all ayaan ku dhufanaya oo dhammaan i tusa. See all markaan ku dhufto waxa markaas uu ii soo saari doonaa dhammaantood mobiladii computerkii waxyaabihii aan ku isticmaalay Facebookiga iyo haddana lafteedaba in lala isticmaalayo qof aanan garanin ama mobile aanan garanin oo ku jiro. Imika halkan waxaa ka soo baxay meelihii aan Facebookiga geliyay dhammaantood. Imika kaagu sareeya waa telefonkan hadda aan isticmaalay oo waa active now. Kuwan ka hooseeyana waa isaga oo meelo kala duwan markaasi kala gelgeliyay. Waxaa ku jira Windows PC, waxaa ku jira Linux, waxaa ku jira markaasi A20e ayaa ku jira, sidoo kale waxaa ku jira maxaan ku rahdaa Android, waxaa ku jira dhammaan adigu mobilada iyo markaasi deviceskaas oo dhan waxaan ku isticmaalay Facebookkayga. Saas darteed halkan waxaad ka arki kartaa markaas in lagula isticmaalayo iyo in kale waa qodobka koowaad oo haddii qof kula isticmaalayo halkan kuu soo gelaya ama computer ka isticmaalo ama mobile ka isticmaalo intaba halkan ayaa kuu soo geli doonaa bartanaad markaasi ka arki doontaa. Setting markaad timaado waxaad iman doontaa security and login baad iman doontaa kadibna qaybtan where you are logged in ayaad ku dhufan doontaa halkan uu kaaga soo bixi doonaa. Waxaan samayn doonaa markaasi qodobka labaad ayaan u gudbi doonaa. Qodobka labaad oo ah sidee ayaan uga log out garan karaa hadiiba aan ogaaday in lala isticmaalayo Facebookkayga. Markay halkan kaaga soo baxaan dhammaan intii kula isticmaalaysay ama meelihii adigu aad gelisay ama qofka aad uga shakidaba ama mobilka aad uga shakidaba in markaasi Facebookkaaga lagu isticmaalayo oo qof aan adiga ahayn uu wadwado. Waxa aad samayn doontaa markaasi in hadda imika kaas tusaale ahaan aan ku tuso Linux hargeysa kale ku qoran tahay. Haddii aan saddexda calaamadood koonaha taabto halkan hoosta waxa uu iga soo saaraya markaasi secure account iyo log out. Haddii aan log out ku dhufto si automatically ayuu uga saaraya computerka lagu isticmaalay. Haddii aan hadda log out ku dhufto waxa uu ka tuurayaa device-ka uu ku jira Facebookkaygu waa uu ka saaraya. Hadda halkan kama dhex aragtid kii hadda markiis uu ku jiray waa uu ka saaraya uu ka tuuraya. Haddii aad rabto dhammaan waxyaabaha halkan ku jira oo dhan ama meelaha Facebookkaaga la gelin aad ka wada saarto halkan ugu hooseysa gaalay log out all of sessions ayuu ku soo saaraya. Dhammaan waad ka wada saari kartaa meel alla meel walba oo gelisay ama qof hadda isticmaalaya ama mobile kale oo ku jiro ama markaasi Facebook maxaan ku rahdaa PC ama computer kale oo ku jiro si automatically ayuu uga saaraya. Log out baad ku dhufan doontaa saddex dhibcood marka taabato halkan log out baad ka dooran doontaa. Waxa uu ku soo saaraya waqtigii la galay maxaan ku rahdaa browserka laga galay nooca uu ahaa device-ka laga galay nooca uu ahaa meesha laga galay intaba markaasi waa uu ku soo saaraya. Waxa markaasi aad samayn doontaa imika tusaale ahaan haddii kaagu dhufto waan ka saaraya log out baan odhanaya. Log out ayaan odhanaya halkan baad markaasi ka ogaanaysaa in lagula isticmaalayo in kale.
kana log out baan siin doonaa. dhammaantood halkan markaasi ka wada saari doonto wax alla wixii aad ka shakido oo aad istiraahdo waxay kula isticmaalayaan facebookaga ood ka saaraysa. Okay, markaasi waxa aynu u gudbi doonaa qodobka saddexaad oo ah sideeban u adkeyn karaa facebookiga ama markaasi aan securitygiisa safety uga dhigi karaa. dhowr qodob oo aad samayn kartaa laakiin inta ugu muhiimsan baan ka eegi doonaa. halkan security and login marka aad ku guda jirto halkan markaasi aad ku jirto waxa aad iman doontaa qaybtan hoose. haddaba dhowr qodob baan kuu sheegay. marka ugu horeysa facebookaga haddii aad rabto in uu ku adkaado ama uu safety noqdo, marka ugu horeysa lambarka dee ha ku samaysanin lambar, yacni ha ku gelin oo login qaybta loginka ama email ama maxaan ku rahdaa ciwaankaaga ha ka dhigin lambar. waa ka labaade mar walba baasuurkaaga ha ka dhiganin tiro yar oo fudud ama magacaaga ama magaca facebookaga wax ku qoran ama magac caan ah adiga lagu yaqaano. waxyaabahaas oo dhan oo fudud iska ilaali. waxa aad samayn kartaa oo kale in facebookaga aad markaasi gashato gmail aad ku xirato. inta badan gmailku waxaa markaasi uu aad iyo aad u adkeynaya facebookaga oo cidi markaasi attacking kuma samayn karto. waxaa kaloo aad samayn kartaa isla lambarkaaga laftiisa inaad ku xirato, balse laakiin aad ka dhigato mid privacy oo aan lagu geli karin, balse laakiin kuugu jira oo haddii hadhow tole baasuurka ama waxyaabahaas ilowda aad ku reset gareyn karto. waxa aad kaloo aad samayn kartaa in qaybtan marka aad timaado aad halkan ku xidhan karto waxaan loo yaqaano use two factor authentication. muuqaalo hore waan kaga hadlay qaabka loogu xidho iyo markaasi sida uu shaqeeyaba. two factor authentication waxa weeyaan in mar walba oo aad facebookaga galis tiraahdo uu koodhku weydiiyo, koodhkaasina uu lambarkaaga kuugu soo dhaco. sidoo kale haddii qof kale isku dayo inuu kalo isaga laftiisa koodhkaas ay weydiin doonaa, isla markaasi telefonkaaga ayuu kusoo dhici doonaa. waad ogaanaysaa in facebookaga la gelin karo. waxaa markaasi aad samayn kartaa in aad password adag aad u samaysato oo mid aan markaasi maxaan ku rahdaa la qiyaasi karin. sidoo kale waxa aad samayn kartaa in qaybtan aad ku dhufato halkan ay ku qoran tahay markaasi get alerts about recognized locals. in haddii qof isku dayo in facebookaga uu galo ama yacni haddiiba meel kale laga galo, si automatically ayuu message kugu soo dirayaa facebook oo ku oranayaa facebookaga waa la galay, halkaas laga galay, qofkaaga waxaas galay, browserkaas laga galay, message messengerka kaaga soo dhacayo weeyaan, waa alert. haddii laftaadu haddii aad meel kale ka gasho ama qof kale haddii uu ka galo, waxa uu kuu soo saarayaa messagekaas oo odhanaya halkaas baad ka gashay. marka waxa way wanaagsan tahay in aad markaasi get alerts login aad u furato, markaasi lagu ogeysiiyo cidda gelaysa iyo cidda markaasi isku dayeysaba facebookaga inay doorato. halkan markaad soo gasho notificationska waad u furaysaa, messengerka waad u furaysaa, sidoo kale emailkana waad u furaysaa. si automatically ayay intaba notifications kaaga soo dhacayaan oo login alerts weeyaan, waxa uu ka ogeysiinaya cidda gashay iyo markaasi meesha laga galay, waxyaabahaas oo dhan. intaasoo dhan ama tallaabooyinkan kuu soo sheegay oo dhan dhammaantood waxaad ku adkeyn kartaa facebookaga. saddexdaa qodob marka aad samayso, qofkii markaad soo hesho device-ka laga isticmaalay, markaad ka log out garayso, dan kadibna aad facebookaga adkayso. tallaabooyinkaas oo dhan qaad, facebookaga safety ayuu ku noqon doonaa. haddii la isku dayo in la attack-gareeyo ama markaasi la jabsadana, waad ogaanaysaa adigana si markaaba dhaqsiya leh ayuu kugu soo dhacaya login alertigu, waa lagu soo sheegayaa in facebookaga la geli rabo. sidoo kalena waxaa ku soo dhacaya codes ama waxyaabahaas oo kale oo adiga laga rabo inaad gelisay. saas baad ogaanaysaa baasuurkaaga ay bedeli doonta markaasi si aan mar dambe la isugu dayin. waxaan rajaynayaa tallaabooyinkan inay ku caawiyeen oo facebookagana markaasi aad adkaysan doonto. dhalinyar fara badan iyo markaasi dad fara badanna aad bay isoo weydiiyeen qaabka facebooka loo ogaado in lagula isticmaalayay, meelaha ka gashay iyo sida looga log out garan karo iyo waxyaabahaas oo dhan. waxaan rajaynayaa qof walba u baahnaa facebook maxaan ku rahdaa muuqaalkan in laga caawiyo facebookiisa inuu ka faa'iidaystay. ma rajaynayaa dhammaantiin khayr baan idin soo rajaynayaa. tan iyo muuqaalka dambe iskugu iman doono. nabaday.